waxaad ku daawan doontaan barnaamij gaaban oo ku saabsan guud ahaanba abaartii ba'nayd ee ku dhufatay mandaqada bariga Afrika gaar ahaanna dhulka Soomaalidu degto sidaad ugala socoteen guud ahaanba saxaafadda Soomaalidana habaartan oo ahayd mid aan horey loo arago aad u kululayd ayaa gabi ahaanba waxay saameysay Soomaalida waxaana si ba'an u baaba'ay xoolaha dadkana waxaa soo gaaray dhibaato xagga dhaqaalaha aad u saameysay haddaba dowladaha ka jira deegaanadaas mandaqada geeska Afrika gurmad intee la eg ayay gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed ee iyagu ku abaaroobay abaartaas ku dhufatay deegaanada Soomaalidu degtay ee mandaqada geeska Afrika barnaamijkan ayaa waxaa marti iigu mudane Maxamed Xaaji Aadan oo isagu afayeen u tala wadaag oo ku abtirsada beelweynta Soomaaliyeed ee gaadsan gaar ahaanna waxaanu ka hadli doonaa dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya gurmadkii ballaadhnaa ay ka geysatay deegaamadaasi ay abaartu ku dhufatay maxamed marka hore kusoo dhawo barnaamijka toddobaadka iyo Toronto magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan kusoo dhawaay Maxamed adiga iyo bahda TV-ga waxaan u mahadcelinayaa fursadda aadna siiseen inaan ka jeedino wixii anaga talo iyo tusaale naga ah iyo bogaadinta aan u wadno dowladda deegaanka Soomaalida iyo dowladaha koonfur galbeed iyo Jubbalandba maartay waxyaabihii ay u qabteen ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada abaarta iyo cudurrada iswadata ay qabsatay wahagaag waxa tahay Maxamed Xaaji Aadan oo afayeenka tala wadaag bal waxaan jecelahay marka ugu horeysa dadka Soomaaliyeed ee faraha badan ee nadaawanayo oo ay ka mid yihiin kuwa aad matalayso in aad la qaybsatid magacan tala wadaag sida uu ku baxay iyo waxa uu yahay magacan tala wadaag wuxuu ku baxay dhalinyaro ka tirsan beelweynta ayaa waxay arkeen dhibaatada iyo abaarta xun ee dadkii haysata marka way isku tageen waxay ogaadeen dadkooda oo ku kala baahsan Soomaaliya iyo Itoobiya darteed since they have inaysan isku keeni karin gobol kaligeed inay mataqaana ay sameeyaan wax la yiraahdo wax isku keeni kara micnaheeduna ay noqotay talo wadaag means hadaynan degaan wadaagaynin inaan talo wadaagno oo aan isku geyno taladeena aan wax kala qaybsanana mataqaana dowladda deegaanka Soomaalida iyo labada gobol ee koonfur galbeed iyo Jubbalandba dadka naga degan abaarta ku dhacday taageerada ay dowladuhu u haayaan iyo deegaanka ay degan yihiin in anaguna qaybteedana ka qaadano oo wixii as qurba joog aan u qaban karnaa aan u qabano wahagaag macnihi waxaan u fahmay waa beelweynta gaadsan oo beelaha Soomaaliyeed kamid ah wahagaag war-saxaafadeedka aad qabateen iyo sida aad saxaafadda la wadaagteen intaba waxaad aad ugu mahadceliseen sida aad sheegteen gurmad ballaadhan oo horkacayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisuba deegaanadaas ay beelweyntu degto iyo gabi ahaanba deegaanka dowladda Soomaalida Itoobiya abaaraha ka dhacay gurmadkii loo sameeyay maxaa keenay xilligan inaad si gaar ugu mahadnaqdaan dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya sidaan ognahay Soomaaliya markii dowladda deegaanka Soomaalida la aasaasay waxaa jiray madaxweynayaal badan oo soo maray waxaan ognahay xilligan dambe sida dowladdan mudane Cabdi Maxamed Cumar inay qabatay waxyaabo aad weyn oo xagga mataqaana horumarka dalka nabadgelyada waxbarashada caafimaadka biyaha oo sidaan la soconaba aad ogtahay maxamedow in meeshii 10 kilomitirba ceel laga qoday dadkeen inaad ogtahay Soomaalidu inay tahay dad xoolo dhaqato ah markaasna dadka xoolaha ay meel dheer u aadi jireen biyaha markii daaq uu yaraado laakiin hadda waxaad moodaa 10 kilomitirba markii ceel laga qoday inay yaraatayba guuridii badnayd oo dadka ay move gareynayeen waxaan aad iyo aad mataqaana la ilaawi karin sida baaxadda leh oo xag biyihii ha noqoto markii cudurku dhacay ambalaastii iyo dawooyinkii ay dowladdu la garab gashay waliba wafdi madaxweynuhu hogaaminaya ayaa tagay degmada Marsin iyo agagaarkeeda oo la qaybsaday dadkii xanuunkii maartay ay ku jireen marka waxaan ugu noqotay maadaama aan dowladdani ay ka gedisan tahay dowladihii hore oo deegaanka soo maray ayna aad u jeedina inay hoggaan mataqaana adag oo qabanaya hawshii ummadda u dirsatay uu meeshii yimid
de waxay tahay inaad marka qofku adeega ku hayaa wax fiican qabto inaad ku ammaantid si uu uga sii badiyo marka waxaan rabnaa inaan mataqaanaa u sheegno in dowladda deegaanka Soomaalidu iyo labada gobol aan ka degno Soomaaliya oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedba waxa ay qabteen aan ugu mahadcelino dowladaha ka dhisan mataqaanaa aan yiraahdo waldan anaguna taageeradii mid la mid ah inaan joogta u dhalatay gaadsan aan isku daynay haday joogto Australia iyo North America Europe iyo Saudi Arabia iyo Afrikaba inaan lacag aruurino oo aan kala qayb qaadano waxtarka ay dowladuhu sameynayaan oo dadkii ayaga ilaa biyihii aan ka qayb galay dhaamiskii haddana ilaa 6,000 oo qof aan quudinayno oo aan rabno inaan mataqaanaa gaarsiino inay soonka ku afuraan oo ay bisha Ramadaan aan ka bixino si ay u helaan waxay cunaan inta soonku dhamaanayo maxamedow intii aynan stuudiyaha soo gelin ee aan sheekaysanaynay aan ku weydiiyey ujeeddada aad ku soo booqateen stuudiyaha iyaga ayaa waxaa ka mid ahayd oo aaday tiri miyaadan daawanin madaxweyne cabdi maxamed cumar socdaalka uu ku kala bixinaya deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo sida uu raashinka u qaybinaya intaba dabcan waa daawaday barnaamijyo fara badan oo ku wajahan arintaas balse waxaan jeclahay inaad dadka la qaybsatid meelaha ugu muhiimsan ee abaartu ku dhufatay ee deegaanada aad degtaan kamida ee mid iyo laba ah ee dhihi karto madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba gargaar bid'aalnimo oo xoog la ayay ka sameeyeen maxaa kamida wallahi deegaanka aan ka degno gobolka waxa weeye gobolka Afdheer iyo gobolka Qorraxay sida degmada Marsin qabalaha Nusdariiq iyo degmada las dalkeynle qabaliyada Captain Nuur deegaanka Jarati degmada la yiraahdo Imey degmada Borobaqasa iyo degmada Dolo Bay iyo Bari intaaba waxa weeye dowladda deegaanka Soomaalidu waxay nagala qayb gashay gurmadkii waliba qayb lixaad leh oo lama ilaawaan ah oo ah wax aan mataqaanaa la ilaawi karin ummadda aan haddaan ka dhalanayna mataqaanaa aan u sheegayno dowladda inaan hiil iyo hooba la garab taaganahay haddaan nahay qurba joogta ka soo jeeda deegaanadaasna aan nahay dad u taagan inaan horumarka iyo himilada ay dowladdu dadkeeda u horseedayso inaan qaybteena ka qaadano aanan ku bogaadinayno madaxweynahana ugu mahadnaqayno iyo xisbiga DDSI maartay hoggaanka wanaagsan ay ku hayaan waddanka maxamedow dowladda deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia waxay in badan codsatay qurba joogta deegaanka u dhalatay in ay gargaarka ka qayb qaadato oo ay geyso raashin iyo dhaqaale wixii heli karaan ka beel ahaan haddaad tihiin beelweynta gaadsan ee goboladaas iyaga wax ka dega maxaa la taaban karaa oo aad deeqahood bixiseen wallahi waxa la taaban karaa intii hadda abaartu socotay habeenii maalinba waxaan kor taagnayn dadka waxay ahayd biyo dhaamiski hooyadan kareynay dowladdu iyadana sideeda biyaha u dhaaminaysay anaguna waa ka qayb qaadanay iskaashi baan sameynay wixii mataqaanaa aan ka qaban karnaa ka qabanay markay noqotay daacuunka inuu yimaadayna waxaan sameynay inaan baawur yaryar kareynay oo dadkii kusoo qaadno oo isbitaalada la keeno marka wax weyn oo aan qabanay baa jirto aan hore loo qabanin oo mataqaanaa dadka deegaanka Soomaalida awal ma bay heli jirinba waxa dowladani qabatay anagana waxayna siisay dhiirigelin fiican oo aan la qaybsanay dowladda maartay waxay qabanaysaa inaan la qaban inkasta oo la sheegaya deegaamada qaarkood inay roobab ka da'een haddana gebi ahaanba deegaanada Soomaalidu degtay ee mandaqada geeska Afrika waxaa laga sheegayaa wali inay jiraan abaaro aan wali laga soo kabanin haddii aad tihiin beelweyntan la baxday talo wanaag qurba joogta matalaya maxaa idiin qorshaysan oo aad jeceshiin inaad dadka gaarsiisaan mustaqbalka mustaqbalka waxaa noo qorshaysan hadda mataqaanaa ku tala jirnaaba maalmaha dhow inaan gaarsiino waxaa jirta 900 oo qoys oo degan mataqaanaa kor degan degmada Marsin qabaliyada Nusdariiq oo mataqaanaa xoolihii dhaafeen oo waxay haystaan jirinin dowladda kaliya mataqaanaa waxa ay siinayso meesha u jooga anaguna waxaan rabnaa inaan dowladdii aanan ku sii deynin oo aan mataqaanaa raashin u qaybino waa haday noqoto mataqaanaa magaalada la yiraahdo Captain Nuur magaalada degmada la yiraahdo Imey degmada Jarati Dolo Bay iyo magaalada Washaaqa oo dhinaca Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxayso iyagana aan gaarsiinay ilaa Baydhabo ilaa mataqaanaa Jubbada Hoose Afmadow ilaa mataqaanaa Qalaawiley
intaasoo dhan waxaan dadka u gaarsiinay qaar aan lacag ugu qaybino si aan mataqaanaa dakhli u gelino wadankii sida dhinaca Soomaaliya dhinaca Ethiopiana waxaan sameynay inaan dawladdii mataqaanaa kala qayb qaadano isla markaana aan korino gelino dhaqaale wadankii si uu mataqaanaa dhaqaalaha wadanka kor u kaco sababtay tahay raashinka aan ka gadayno dadka baacmisterka u dhashay gobolka oo aan siinayna dadka wuxuu kicinayaa ayaga laftigooda mataqaanaa business ahaan in magaalooyinka aan dhisno marka waxaan haddana ku tala jirnaa inaan mataqaanaa bisha soon intay socoto dhanba dadkii aan raashin iyo waxay cunaan aan siino isla markaana aan bilowno sidii aan mataqaanaa aan dawladda ugala qaadan lahayn waxyaabaha horumarka caafimaadka ha noqoto iyo waxbarashada inaan iskuulaad wax ka dhisno inaan ceelasha wax ka qodno inaan degmooyinka guryo xitaa mataqaanaa waxaan dardar gelinaynaa in mataqaanaa qurbo joogto ay guryo ka dhistaan sida degmada Marsin iyo Las Darkenle si mataqaanaa aan deegaankaas maarta wax uga qabno aan ka faa'iideysano maadaama dawlad deegaanka madaxda ugu sareysa ay ka imaadeen degmada Marsin iyo meesha anagu ka soo jeedno marka maadaama aan dawladdeennii ay tahay inaan anaguna ka qayb qaadano waxqabadka ay qabanayso wahagaag maxamedow dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya baaritaan aan soo sameynay intii aan soo diyaarinayay in aan qabano wareysigan waxa ugu weyn oo dawlad deegaanka Soomaalida mas'uuliyiintoodu sheegayaan in dawladda la soo marsiiyo wixii gargaar bila aadnimo ah ee looga geysanaya dadka tabaalaysan xiriir ma la sameeyeen dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waa jirtaa waxaa jira xildhibaanada ka soo jeeda beesha oo ka tirsan dawlad deegaanka inaan la socodsiinay waxyaabaha aan damacsannahay isla markaana de waxa ugu weyn oo aan qaban karnaa ay ahayd inaan waxa markaas la qabanay emergency ba ahayd dawladdana waa soo maray mar kastaba waxa weeye in dawladda la mariyo wixii aad qabanaysa bangiyada iyo mataqaanaa wadanka sharci mataqaanaa meesha financial mataqaanaa oo u shaqeynayo isla markaana de wax ka gadaynaa waa dawlad deegaanka dhexdiisii isla markaana waan haynaa xiriir mataqaanaa aan la sameynay gudoomiyaha degmada Marsin oo kale qaybtii leedax oo ka qaatay xitaa mid la ilaawi karo ma isaga iyo mataqaanaa ninka xukuma ciidamada new police oo qaybtaas wax aan la ilaawi karin bay u qabteen ummadda iyagoo xitaa isticmaalay in mataqaanaa gaadiidkii dawladda dadka lagu qaado because aad iyo aad bay dadku u dhibaataysnaayeen marka waa wax aad loogu farxo in maanta dawlad dadkeeda teergare mataqaanaa raxmad u haysa inay wadankeeni ka jirto markaana waana u hambalyeynayna wahagaag maxamed Umar hadda soo hadal qaaday ciidamada liyu booliska iyo hawlaha ay ka qabanayaan deegaanadaas waxa ugu weyn ee horumar in la sameeyo ama gargaar dadkan loo sameeyo qayb ka noqon kara waa nabadgelyada oo la xoojiyo ka deegaan ahaan iyo ka bulsho ahaanba intee in la egbaad kaga jirtaan nabadeynta deegaanadaas iyaga ah iyo inaad la shaqeysaan xukuumadda والله ده أرجع وح خصب أموك تامر كديجان كأقول على طي إن الدفاعي إنه بتجلد هالنقطة حاجة أرمها برشة هالنقطة إنها كقيب قشت أنت